loo joojin maayo, lala hadli maayo, cidna la dhageysan maayo. intaba waxaad moodaa caawa siyaasadda Soomaaliya inay ka tirtirmatay. madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta hadlay, waxa uuna ku baaqay shir kulan maaragtay ay isugu imaanayaan siyaasiyiinta mucaarad iyo muxaafadka Soomaaliyeed iyadoo ay qayb ka tahay maaragtay bulshada rayidka iyo beesha caalamka. shirkaas ayuu madaxweynaha ku baaqay xilli uu jeedinayay hadal jeedin ku aadan curashada bisha Soonfur iyo farxadda maalinka Ciidul Fidriga. soo jeedintan madaxweynaha dalkan yiraahdo Suuri ee ku aadan in maaragtay gogol uu fidinayo waxay imaanaysaa iyadoo dalku muddo 2 sano iyo xoogaa ah ay siyaasiyiintiisa ku kala maqnaayeen khilaaf siyaasadeed oo arrimaha gudaha hadii ay ahaan lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo mucaaradka madaxweyne 2026 oo dhinaca ah. hadalkan madaxweynaha dad badan ayaa soo dhaweeyay, waxayna u arkaan in uu yahay mid uu madaxweynuhu talada dalka dhaxda maaragtay ku soo dhigayo oo uu ogolaanayo in wax lala toosiyo maadaama xaaladda siyaasadda dalka ay haadaan ka sii dhacayso. haddaba wanaagaas ay u arkaan dadka marka laga soo tago waxaa xusid mudan in ergeyga gaarka ah sida warbaahinta xalay qortay ergeyga maaragtay xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres uu magacaabay xogayaha maaragtay gaarka ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay James Iswan oo ku meel gaar ama siyaaya ka ah xilkaas. imaanshiyaha James Iswan iyo isbedelka ku dhacay aragtidii madaxweynaha ee loo joojin maayo oo ay saaxiibadiis qolka ku soo xirtay lahaayeen 2060 ayaan ugu riyoonay madaxweyne xasan inuu maaragtay sii joogi doono kursigan. maxaa kulansiiyay ayaad isleedahay? midda xigta adiga aragtidaada ma waxaad aaminsan tahay isbedelka ku dhacay madaxweynaha iyo talada wanaagsan uu la yimid waa maaragtay aragtidiisa go'aankiisa iyo inuu dalkan u naxayo ayuu talada dalka go'aansado inuu dhaxda soo dhigo, mise waxaad aaminsan tahay beesha caalamka ayaa ku qasbaysa madaxweynaha maadaama dalka dhaqaale xumo dagaalo uu galay siyaasadda arrimaha gudahana ay qariban tahay caalamkiina uu culeys naga haysto? maxay kula tahay adiga oo madaxweynihii diidanaa in siyaasiyiintu uu fursad siiyo hadda ku qasbaya? midda xigtay ma kula muuqataa teendadii in la aaday mise weli waxaad aaminsan tahay doorashada qof iyo codka ay dowladda iyo villa Soomaaliya ka sheekeynaysay ayaa laga wada hadli doonaa haddii madaxweynaha shirku uu ku baaqay la isugu yimaado? adiga aragtidaada hoos igu reeb adigoo maanka ku haya in madax baadigoob maxkamadda gobolka Banaadir ay ugu jirtay looga yeeray villa Soomaaliya gogol lagu dhigay inay yimaadaan. waa mahadsantihiin. Eid Mubarak meel kasta aad joogtaan.